بسم الله الرحمن الرحيم كلا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجka bandhiga HBN barnaamijkan gabi ahaanba maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa badda cas ma waxay qarka u saaran tahay dagaal ka dhaca xiisad ayaa ka aloosan badda cas marka laga soo tago weerarada xuutiga ay wadaan ee ka dhanka ah Israa'iil iyo maraakiibta la xiriirinayo Ethiopia ayaa damac waxa uu kaga jiraa badda cas waxaana la sheegayaa in imika qarka loo saaran yahay dagaal dhex mara Ethiopia iyo Eritrea kaas oo ku salaysan damaca badoonka ah ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed kaas oo sanadkii hore si weyn isugu dayay badaha Soomaaliya in uu ka helo marin saldhig military oo ka samaysto arrinkaasi ayaa waxa la sheegayaa in weli uu taagan yahay gaar ahaan iyadoo hadda Abiy Ahmed uu leexday dhanka Eritrea dhawaan sidoo kale Israa'iil ayaa ka samaysay badda cas dowlatus military Masar waxay ku sheegtay inaysan aqbali doonin in xerab military ama laga sameeyo xaalado kicin dhanka khilaafaadka ku salaysan iyo colaadaha badda cas isla markaasna arrintaasi waxa sidoo kale ay ku soo aadaysaa iyadoo dagaal ay ka socdaan waddanka Suudaan haddaba maqaalkan waxaynu ku eegaynaa warbixin dheer oo ku saabsan dagaalka laga cabsida qabo inuu ka dhaco badda cas iyo saameynta uu yeelan karo iyo waliba dagaal si toos ah u dhex mara Ethiopia iyo Eritrea saameynta arrintaasi ay ku yeelan karto Soomaaliya iyo gobolka ayaan sidoo kale falaqayn doona maxamed cadde oo soo akhriyay qormadan ayaa qadka ku jira maxamed bal hadda inoo bilow warbixintan xaaladan culus ee ka taagan badda cas ka hadlaysa sanadkii 2019 in yar kadib markii abaalmarinta nabadda la siiyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed dadaaladii wada heshiisiinta ay la galay Eritrea ayaa waxa uu galay dagaal lagu hoobto oo dalkiisa gudihiisa ka dhacay dagaalkaas Ethiopia waqooyigeeda gobolka Tigray ka dhacay ayaa bilowday sanadkii 2020 waxa uu na socday 2 sanadood oo isku riiqday natiijadana waxay noqotay dad badan inay ku dhintaan dad badan ku dhaawacmaan macluul burburin iyo barakac weli colaadaasi caalamka dareenkiisa kuma soo jeesan sida dagaalada kale ee Ruushka iyo Ukraine iyo midka Mareykanka Gaza ka socda iyo dagaalka Suudaan ka socda حتى dagaalkii koobnaa ee Iran iyo Israa'iil dhex maray ayaa dareenka caalamka jiitay halka warbaahinta caalamka ay bartilmaameed ka dhiganayso oo kaliya meelo kale geeska Afrika ayaa waxa ka jiray xaalad qas iyo qalaanqal iyo dagaal ah haddana waxay qarka u saaran tahay dagaal cusub in uu ka bilowdo oo khatar gelin kara xasilooni darrana ku keeni kara mid ka mid ah biyo mareenada caalamka ugu muhiimsan oo ay maraan shixnadaha xamuulka qaada iyo shidaalka maqaalkan oo uu qoray warsidaha la yiraahdo Foreign Affairs ayaa Professor Alex Diwal khabiir ka ah arrimaha geeska Afrika Suudaan iyo nin kale oo cilmi baaraca oo la yiraahdo Mulugita Gebrewitt oo Ethiopian ah horena uga tirsanaan jiray dagaalyahanadii jabhaddii xoreynta dimuqraadiyadda Ethiopia EPRDF ayaa waxay ku doodayaan in Ethiopia iyo Eritrea ay mar kale qarka u saaran yihiin inay isfara saaraan jabhaddaasi xoreynta Ethiopia waxay ahayd mid siyaasadda waddanka Ethiopia gacanta ku haysay wixii laga soo bilaabo 1992 ilaa iyo Abiy Ahmed intuu xukunka la wareegayay 2018 waxaana ay ahaayeen jabhado isxulufaystay oo ay horseed ka ahayd jabhadda xoreynta Tigrayga TPLF
taariikhda hadda socota ayaa waxa ay qaabeynaysaa qaabka siyaasadeed ee Etoobiyada maanta, gaar ahaan iyadoo Tigreega aad u muuqdaan in ay jabhada noqdeen, raadinayna in ay madax banaani buuxda Etoobiya ka qaataan, ayagoo qaar ka mid ah ay iskaashi la leeyihiin Eritrea, halka koox kalena ay rabto in lagu noqdo nidaamkii federaalka ahaa ee Etoobiya la wadaagaysa. waa garta waayahay dhowaanahan xiisad ayaa ka dhex aloosanayd Etoobiya iyo Eritrea iyadoo ciidamo fara badan la dhoobaya xadka. maxaa ugu dambeeya oo warbixintan ay arrimahaasi ka qortay? Abeyshan colaadeed isheeda waxa ay tahay baa leeyahay Etoobiya iyadoo dalbanaysa in ay bad hesho. ilaa intii ay Eritrea xorriyaddeeda qaadatay 1993 dagaal dheer ka bacdi, Etoobiya waxay noqotay waddan go'doon ah oo aan bad lahayn, waxayna ku tiirsanayd ganacsigeeda dibadda waddanka Djibouti. bishii November 2023 ayaa Abiy Ahmed waxa uu ku dhawaaqay in ay tahay in Etoobiya ay badda cas meel ku yeelato, arrintaasna ay jiritaanka Etoobiya muhiim u tahay. wuxuuna si furan u sheegay in dekedda Casab ee Eritrea ay Etoobiya xaq u leedahay. bayaankaas markii uu soo saaray ayaa xiisada bilaabatay. xiisadaas ayaa karaysay ilaa intii laga soo afjarayay dagaalka Tigray. Etoobiya iyo Eritrea ayaa wixii markaasi ka dambeeyey waxa ay isu urursanayaan ciidan iyo hub, diyaaradaha droniska loo yaqaano oo hadda dagaalka casriga lafdhabar u ah, gantaallo, baabuurta qafilan oo munaasab ku ah dagaal ka dhacaya deegaanka, dhaqdhaqaaq ciidan ee ku dhow xuduudka magaalada Casab ayaa waxa uu dhaliyey feejignaan dheeraad ah oo laga yaabo in ay isku fara saaraan deegaankaasi dhowaan labada dhinac, Etoobiya iyo Eritrea. waaya Axmed, marka maxay muhiim u tahay Casab? dekeddan Casab ayaa waxay 60 kilomitir u jirtaa xuduudka Etoobiya. waa goob aad istiraatiiji u ah, waxay ku dhowdahay cirifka badda cas, aadna ugama foga marinka Bab-Mandeb, waxaana marinkaasi mara ganacsiga caalamka iyo shidaalka caalamka. dhanka Etoobiya marka laga fiiriyo, waxay rabtaa inay hesho deked si ay uga madax bannaanaato inay dekedda Djibouti isticmaasho oo kharash badan ooga baxo sanadkii $1 bilyan lagu qiyaasay. waxay rabtaa inay xoojiso madax bannaanida dhaqaalaheeda iyo badi ayada leedahay inay hesho. dhinaca Eritrea marka laga fiiriyana, si kastoo ay tahay, Casab waxay ka mid tahay halbowlayaasha dhaqaalaha ee Eritrea ee caalamka intiisa kale. in laga qabsado Casab, Eritrea waxay u aragtaa jiritaankeeda inay arbaxyo ku dhacday ama dhaawac halis ah. dagaalka laga yaabo inuu dekeddan ka dhaco ma aha oo keliya mid burburinaya labada dal, waxaa laga yaabaa inuu carqaladeeyo marinka badda cas oo mar horeba dhibaato xoog leh ay ka jirtay kadib markay Xuutiyiintu bilaabeen inay baddaasi carqaladeeyaan, sida hadalka loo dhigay. waxaa ka dhigaya xaaladdan mid ka khatar badan xaaladihii hore u jiri jiray haddii colaadi ay Etoobiya Eritrea ku dhex marto. waxay noqonaysaa mid aan laga baaqsan karaynin in Tigreegu ay dagaalkaasi ka qayb galaan. Tigreega ayaa xuduud la wadaaga Eritrea, welina kama ay soo kaban dagaalkii 2020 iyo 2022 oo ay ku dhinteen in ka badan 600,000.
malaayiin kalena ay ku barakaceen. marka laga gudbo in heshiis lagu gaaray magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika oo la saxeexay November 2022 iyadoo ay uu suuro geliyay heshiiskaasi ururka midowga Afrika iyo Mareykanka. heshiiskii la gaaray ayaa weli aad u nugul ciidanka Eritrea si buuxda ogama ayna bixin gobolka Tigreega. waxa ayna joogaan ilaa ay hadda deegaankaasi. Amxaaradana sidoo kale qayb ka mid ah ayay haysataa maleeshiyad Amxaara ah. in ka badan 1 milyan oo dadka reer Tigreega ah ayaa weli barakacyaal ah oo aan awood u lahayn inay ku soo noqdaan deegaanadoodii. jabhadda xoreynta Tigreega laftirkeeda ayaa kala qaybsan oo noqotay qaar Addis Ababa la socda iyo qaar Asmara la socda. mid walbana waxay leedahay garab iyo maleeshiyad dagaalama. haddii dagaal uu dhex maro Ethiopia iyo Eritrea, Tigreega mar kale ayay waxay noqonayaan qaybta ugu muhiimsan ee dagaalkaas ka qayb galayso. waa gartay dagaalkan hadda aynu ka hadlayno dhibaatadaas faraha badan sababay ka dhacay Tigreega gobolkiisa. markii hore xulafadii iswadatay imika isku soo horjeedaan gaar ahaan Abiy Ahmed iyo Eritrea oo ku goobtay Tigreega, laakiin hadda arrintu way isbedeshay. marka maxaa arrintaasi ka dhalan karaa? waxaa xudun u ah xiisadahan waxa weeye wixii ka dambeeyay dagaalka Tigreega in horaantiiba Ethiopia iyo Eritrea ay xulafo ahaayeen waa dhab, kuna midaysnaayeen inay ka soo horjeestaan jabhadda xoreynta Tigreega TPLF oo ay u arkeen cadow labadooda ay wadaagaan. hase ahaatee Abiy Ahmed ayaa waxa uu rabaa inuu gabi ahaanba kala diro jabhadda TPLF maadaama ay ka cagajiideen oo ay diideen kala diridaasi si uu xisbigiisa u noqdo mid wadanka oo dhan si fiican u qabsada. dagaalkii hore ayay keentay. madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki muddo dheer ayuu ka soo horjeeday jabhadda xoreynta Tigreega TPLF, waxaana ka go'nayd inuu gabi ahaan burburiyo. labadan hogaamiye Eritrea iyo Ethiopia ayaa waxa ay garab siinayeen maleeshiyada Amxaarada Fano loo yaqaano, maadaama ay u arkayeen fursad taariikhi ah oo ay ku qabsan karaan dhul ay muddo dheer ku muursanaayeen ee ku yaala galbeedka Tigreega. 2 sano oo dagaal isku riiqday ah iyo in meel la kala qabsado macluul iyo xasuuq, dowladda Mareykanka iyo ururka midowga Afrika ayaa dhexdhexaadiyay heshiiskii Pretoria dalka Koonfur Afrika, halka lagu sheegay heshiiskaasi inuu ahaa guul diblomaasiyadeed. ayaa heshiiskaasi lagu sheegay inuu ahaa mid lagu degdegay, welina uu nugul yahay, oo aanan lagu darin dhinacyo muhiim u ahaa heshiiskaasi oo ay ahayd in lagu daro sida Eritrea iyo Amxaarada. waxaana la saadaalinayaa in labadaas dhinac ay wadajir uga soo horjeesteen Abiy Ahmed. 2023 maleeshiyada Amxaarada ee loo yaqaano Fano ayaa dagaallo kacdoona ku bilaabay ciidamadii federaalka ee dowladda Ethiopia, halka Eritrea ay ku eedeynayso Abiy Ahmed inuu khiyaano sameeyey kana shaqo qabto, ogana digayso inuu xiriir la leeyahay dowladda Mareykanka oo raba inuu ka takhaluso xukuumadda Eritrea. waayahay maxamed, haddii aan isku dayo inaan soo koobno colaadan marka laga tago xiisadan imika aloosan iyo heerka ay kala joogaan
abiy axmed iyo asiyaas afawerki suurtagal ma tahay arrintan inay gobolka saamayso oo dagaalkan uu noqdo dagaal goboleed ama gobolka ku faafo haddii Ethiopia ay xoog ku gasho magaalada dekedda ee Casab Eritrea waxaa hubaala in ay tallaabo argudasho qaadayso oo ay taageeri doonto mucaarad ku sugan Ethiopia gudihiisa gaar ahaan Amxaarada iyo Oromada gobolka Tigreega haddii ay qayb ka noqonayaan dagaalka iyo haddii kaleba waxa ay noqon doontaa in dagaalka lagu soo jiido wadamada Soomaaliya iyo Suudaan ayaa qoraalkan waxa uu ku tilmaamayaa inay xasiloon darro ka jirto in laga yaabo ayaga lafirkooda inay dagaalka lagu soo jiido oo dagaalku noqdo dagaal goboleed geeska Afrika ku baaha iyadoo labada dal Ethiopia iyo Eritrea dagaalkan uu noqon doono mid ay isu adeegsan doonaan ciidamo khibrad badan dagaalka u leh oo muddo badan dagaalamayay khasaaro badanna u dulqaadan kara oo macnaheedu yahay dagaalka inuu noqdo mid dheeraada oo khasaaro weyn geysta saameynta xagga dhaqaalaha ayaa lagu sheegayaa in laga yaabo inay dhaafto gobolka geeska Afrika maadaama badda cas ay tahay halbowlaha dhaqaalaha iyo ganacsiga caalamka baaba mandib iyo badda casna ay tahay marin muhiim oo isku xira Yurub iyo Asia iyadoo xuutiyiinta markii ay mar horeba weeraro iyo carqaladeyn ku wadeen maraakiibta dagaalka Casab ka dhacaya laga yaabaa in uu dhaliyo in ay korodho ascaarta saliidda iyo shixnadaha lagu qaado agabka kale inay qaaliyoobaan waaya inta aysan imaanin mushkiladaasi iyo hooggaasi iyo ba'aas ma laga hortegi karaa dagaal inuu qarxo marka laga gudbo in dagaalku uu khatartaas yeelan karo dagaal waa laga baaqsan karaa ayuu leeyahay maqaalkan lagu qoray mid ka mid a wargeysyada ka lafagura arrimaha caalamka oo la yiraahdo Middle East Eye midda ugu muhiimsan ayaa waxay tahay baa leeyahay in laga hortago Tigray inay noqoto askar la isu adeegsado oo ay isu adeegsadaan Ethiopia iyo Eritrea haddii Tigraygu ay dhexdhexaad ka noqdaan arrintan labada dhinacba dagaal dheer ma sii wadi karaan dowladda Ethiopia iyo dowladda Eritrea labadaba way ogsoon yihiin inaynan dagaal weyn uun dhex mari karaynin iyadoo Tigraygu oonan qayb ka ahayn waxyaabaha ugu muhiimsan ama tallaabada ugu muhiimsan ee xasilooni lagu keeni karo ayaa tahay in la xoojiyo heshiiskii Koonfur Afrika lagu gaaray Pretoria iyo qodobadii ku xusnaa ee dib loogu soo celinayay xuduudkii Eritrea xuduudkii ay Tigraygu lahaayeen dagaalka ka hor dadkii barakacayaasha ahaa ee Tigraygana la soo celiyo wadahadalo siyaasadeedna la bilaabo si xaaladdu ay u noqoto mid sahlan oo la xallin karo caqabadda haysata in heshiiskaasi qodobadiisa la meel mariyo waxa weeye waxaa ka cagajidaya dowladda Ethiopia waxaana taa u heliya cadaadis cid saaraysa ma jirto marka ay timaado beesha caalamka waddanka Ethiopia halka dowladda Mareykanka ay weli galgal ku leedahay Ethiopia maadaama Ethiopia ay lacag bilaayiin dollar oo gargaara Mareykanka ka hesho iyo naas nuujin kale oo xagga dhaqaalaha sanadkii hadda la soo dhaafay 2024 xaaladaha mustaqbalka lagu taageeri karo in heshiiskii Pretoria la meel mariyo ayaa ku riixi kara ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed in uu tallaabo qaado nabadayna isla markaasna
gargaarkii bini aadamnimo loo soo celiyo gobolka Tigreega ay waajib tahay in si dardar ah loo soo geliyo weliba si wax looga qabto baahida dheeraadka ah ee imaanaysa marka ay soo noqdaan dadka barakacayaasha ah hoosna loogu dhigo dagaalka iyo wacyigelintiisa. dhanka Maraykanka marka la fiiriyo guusha waxay ku xirnaan doontaa gargaarka la siiyo gobolkaasi Ethiopia iyo Tigreega, waxaana ay tahay Maraykanku inuu xaqiiqsado xasiloonida gobolka geeska Afrika oo ah mid lagu xadidi karo saameynta bariga dhexe ee awoodeed uu yeelan karo. Maraykankana waxa uu dib u xaqiijinayaa hogaankii istiraatiijiyadeed ee uu gobolkani ku lahaa. Ethiopia iyo Eritrea dhankooda marka laga fiiriyo waxa ay ka baaqsanayaan dagaal oo macnihiisu yahay burbur, halka marka dagaalkaas laga baaqsado kharashka iyo maalka lagu jihayn doono halkii wax lagu dumin lahaa dib u dhis, halka Tigreegana gobolkaasa ay helayaan fursad ay si wanaagsan uga soo kabtaan dagaalkii dhibaatada weyn ay ku gaartay oo ay dadka badan ku dhinteen, dadka badanna ku barakaceen.